رمضان 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 يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal, allah subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey nicmooyin aada u fara badan oo aan la soo koobi karin. wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. nicmooyinka alle uuna siiyey waxaa ka mid ah inuu noogu deeqay xilliyo cibaadooyinka la sameeya ajirkooda uu aada u badan yahay. waxaa ka mid ah xilliyadaasi bisha barakaysan ee ramadaan. bishan barakaysan ee ramadaan ilaahay wuxuu dhexdeeda dhigay fadli aada u fara badan oo aan la soo koobi karin. waa bishii soonka, waa bishii qur-aanka, waa bishii ducada, waa bishii alla ka baqida, waa bishii sadaqada khayraadka, waa bishii qiyaamuleylka iyo taraawiixda, waa bishii khayraadka. bishaasi allah subxaanahu watacaala soonkeeda uu nagu waajib yeelay waxa ay ka mid tahay arkaanta ama tiirarka islaamka ah ee shanta. sidaa darteed waxaan halkan ku qaadaa dhigi doonaa arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso waa maxay soon, xukunkiisu muxuu yahay, yaa lagu leeyahay. saad la wada socotaan, bisha barakaysan ee ramadaan marka laga soo tago fadligeeda, haddana waa bil cibaadadeedu ay tahay cibaado ummadihii naga horreeyay hataa looga baahnaa. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. soon ayaa laydinku waajib yeelay sidii dadkii idinka horreeyey loogu waajib yeelay. haddaba sidaa darteed, waa maxay soon? maxayse tahay qofka muslimka ah waxa laga rabo? ereyga soom waa erey af carabi ah, afka soomaaliga waa af haysi. marka soom la dhaho qur-aanka waxaa ku soo aroortay iyadoo loola jeedo hadal la-aan. maryama markii cunugeeda ay ka hadlayso waxay tiri falan ukallima alyawma insiya. maanta wax bini aadam ah in aan la hadlo waan ka soomay. marka soonka marka waxay ku fasirtay inaan la hadlin. luqadda marka waa af haysi. faraska hataa marka uu ka joogsado socodka ayaa la yidhaahdaa wuu ka joogsaday ama saama. xagga sharciga soon waxaa loo jeedaa in aan ka fogaano, aan ka tagno waxyaalaha qofka afuriyo sida cuntada, cabidda iyo in qofka reerkiisa ama xaaskiisa uu u tago laga bilaabo fajarka saadiqa marka uu dhasho ilaa laga gaaro maqribka ama xilliga ay qoraxda dhacdo oo muadinka uu ka aadaamo. inta u dhaxayso qofka wuxuu ka fogaanayaa cabidda iyo cunidda si ula kac ah. sidaa darteed marka soonku waxaa loo jeedaa in aan ka fogaano waxa dadka afuriyo oo cunidda, cabidda iyo wixii makaankooda geli karo, iyo sidoo kale jamaaca ama isu tagga iyo wixii booskooda geli karo laga bilaabo fajarka ilaa laga gaaro xilliga maqribka. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr uma atimu asiyaama ila alleyl walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid. haddaba soonka tacriifkiisii waa sidaas. ama soonka xukunkiisu muxuu yahay, yaa lagu leeyahay? soonka xukunkiisu waxa weeye farad ama waa waajib. nabiga allah wuxuu yidhi kutiba calaykum asiyaam, ay furida, waa laydinku farad yeelay. nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi bunya alislaamu calaa khamsin: shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah. wuxuu kusoo gabagabeeyey wa sawmi ramadaan, iyo bisha ramadaan in la soomo. arrimahaasi oo dhan waxa weeye tacriifka soonka iyo xukunkiisa. waxaana soonka laga rabaa qof walba oo muslim ah, oo caaqil ah, oo baaliq ah, yacni qof muslim ah oo mukallaf ah. mukallafku waa inuu caaqil yahay, wax garanayo, waalneen, yacni baaliq yahay oo qaangaar yahay oo saqiir ah, wax kala sooci kara uusan ahayn. sidaas oo kale qaadir ah oo awoodi karo oo xanuun iyo dhib kale uusan haysanin, muqiim ahoo joogo oo nag oo aan safar ahayn. sidoo kalena gabdhuhu ay daahir ka yihiin dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada. dadkaasina waa dadka uu ku waajibo soonka. cashirkeena koobaad oo aan ugu talagalnay inaan mafhuumka ama yacni muxuu ahay qeexidda soonka iyo xukunkiisa iyo cidda uu ku waajibo halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala وبركاته. نور الهلال أقبل تعال